بسم الله الرحمن الرحيم. soomaalida waddankan Australia khaasatan magaalada Melbourne gobolka Victoria kani waa Xamdi Axmed dhegeystayaal walaalayaal waxaan jeclahay in idin la wadaago arrin aad iyo aad walwal ii gelisay oo ah in maqaaxiyaha ku yaala magaalada Melbourne khaasatan xaafadda Flemington kuwa kalena iyagana waa la sheegayaa inay la mid yihiin in arrintii la isu sheegay dadku ay ka dhiganayeen arrintan inay been tahay inay waxba ka jirin inay gaalada ay tahay inay ka daweyn karto maartay bahashi maxaa la jiray liin iyo waxaasoo cunto loo qaadan hayo si dhab aha oo dad marka ay naftooda khatar gelinayaan ehelkooda khatar gelinayaan ciyaalkooda iyo reerahooda qaraabadooda iyo community-ga Soomaalida ee guud iyo mujtamaca guud ay khatar gelinayaan taasoo inkasta oo maqaaxiyihii la xidhay oo la yidhi cuntada waa la qaadan karaa laguma cuni karo in maqaaxiyihii xaggooda dambe meelihii qaadka lagu cuni jiray iyo shiishada weli lagu samaynayo khatarta ku jirta arrintaasi waxay tahay cad engeed loogu soo gabanaynin haddii ay 10 ruux 15 ruux meesha isugu yimaadaan amaba oo mid ka mid ah uu cudurka la socdo mana uu dareemayo ogaada cudurkani waxaa la yidhi 2 maalmood ilaa 3 maalmood oo ugu horeysa ruuxu asagoo oo wada ayuusan dareemaynin waxyaalaha uu kaga bedelan yahay kuwa kale taway in marka uu gudbin karo oo dadku uu gudbinayo arrintaasi inay dad samaynayaan oo ay khatarta ku jiraan waxaan jeclahay dadkaas inay ogaadaan sharciga Victoria ay hadda yaalla ruuxii arrinta lagu ogaado isagoo jabinaya shuruuda adag ee laga soo dejiyay khaas dadka isu imaatinkooda in 20,000 la ganaaxayo businesskana la ganaaxayo $100,000 la ganaaxayo waxaasoo dhan bas waxaa ka daran khatarta dadkaasi ay gaarsiinayaan ehelkooda ciyaalkooda dadka hadda maanta qaadka ku cunaya meesha ama shishada ku cabahaya ilaa 5 6 7 8 10 ruux oo kale ay meesha madaxa isla wada galahayaan qol yar ay ku wada jiraan waxaa laga yaabaa markuu ka soo tago inuu reerkiisii iyo gurigiisii u yimaado waxaa laga yaabaa inuu maartay community-gii meelaha kale isugu yimaadeen iyadana kale inuu arko ama wadada lagu arko oo uu ku salaamo kada ilaa dadka ruuxa waxa sameynaya maba aaminsano waxaan la leeyahay dadku ha kala dheeraado